بسم الله الرحمن الرحيم باغ نبديد maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 9ka bisha December sanadka 2019 waxa dawladda federaalka ee Soomaaliya ay aad uga walaacsan tahay ugana xun tahay dirirta maanta mar kale ka soo cusboonaatay deegaanada Tawfiiq iyo afar waaqo oo ka tirsan gobolka Mudug waxaana dawladda Soomaaliya ay aad uga walaacsan tahay xaaladda ku sugan yihiin dadka maatida ah ka barakacay colaadaas iyo dirirta maalmihii la soo dhaafay ka soconayay deegaanadaasi ka tirsan degmada Jariiban ee gobolka Mudug xukuumadda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadaasi inay si degdeg ah u joojiyaan kana dhowrsadaan wax walba oo cawaaqib xumo ah ama dhibaato ku keeni kara bulshada ku nool deegaanadaas waxaa socda qabanqaabada iyo isu diyaarinta ciidamada dawladda Soomaaliya isku dhafka ah ay ugu tala gashay in halkaas loo diro isla markaana ay kala dhex galaan dadka beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanadaas waxaana dawladda Soomaaliya ay marnaba aqbali karin in ay sii socoto colaadda halkaas ka dhacaysa waxaana dawladdu ay maxkamad soo taagi doontaa dhammaan cid walba oo labada dhinac ee ku lug yeelato horinta colaadaas iyo in ay ka dhaga adeegto awaamiirta iyo baaqyada ka soo baxaya dawladda ee la xiriirta joojinta colaadaas waxaa la socotaan in dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada Soomaaliya inta badan ay ka dhacayeen fatahaado iyo musiibooyin rabaani ah kuwaas oo dawladda Soomaaliya iyo shacabkuba ay la tacaalayeen sidii wax looga qaban lahaa iyadoo xaaladaas ay taagan tahay ayaa haddana waxaa nasiib darro ah maanta in meel 220 kilomitir u jirta magaalada Gaalkacyo oo xaaladdu ay aad u adag tahay in dagaal dad walaalo ah uu ku dhex maro waxaana arrintaasi ay muujinaysaa in aysan dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed baanay aqbali karin horinta colaadaha iyo daadinta dhiigga dadka walaalaha ah ugu dambeyntii dawladda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan culimada ganacsatada waxgaradka iyo dhalinyaraduba inay ku baxaan ayna ka qayb qaataan gurmadka iyo joojinta colaadaas dadka walaalaha ku dhex maraya deegaanadaas ka tirsan gobolka Mudug waxaan rajaynaynaa in Ilaahay uu nabad iyo xasilooni kala dhex dhigo dhinacyada halkaas ku dagaalamaya wabillahi tawfiiq